marka walaalayaal muxsiniinta dhammaan iyo muslimiinta waxaan ugu baaqinaa masaajidka inay dhisaan oo ay ka qayb qaataan oo dhismihiisa inay ka qayb qaataan. masaajidka waxaa aad iyo aad u macnaha u baahan yahay in aad keentaan dhagax u baahan yahay, birihu u baahan yahay, carru u baahan yahay, ismiid buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay bulkeeti buu u baahan yahay. wax kasta oo masaajidka lagu dhisahayo oo u baahan yahay inaad ka qayb qaadataan baan rabnaa insha Allah. ilaahay idinkii waxa la waxaad bixisaana ilaahay bangigiisa ayaad ku shubateen, waana helisaan isagoo laba ajir isagoo laba ayaad helisaan. wuxuu u baahan ninkii keena carrada la keenayo iyo dhagax la keeno kulliga u baahanna, haddii bulkeet yahay, haddii bulkeet u yahay, haddii dhagax yahay, haddii alwaax yahay, haddii misbaar yahay, haddii ciid yahay, dhammaan intaasoo dhan masaajidku wuu u baahan yahay. qofkii ajir iyo axsanaad doonayo intaa qayb ka mid ku aado. haddii kulli dadka islaamka ah waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh masjidkii la foolaan wali taagannahay oon dhaaroweyna idiin soo duubno insha allahu kariim inaad ka qayb qaadataan masjidka. ninkii bulukeeti bixinayo, ninkii gaari carraa bixinayo, ninkii dhagax kalow bixinayo, ninkii ismiid bixinayo, ninkii jiigad bixinayo, ninkii silig bixinayo, ninkii biyaha bixinayo. ayga waa Sheekh Cumar Nuux Ibraahim, waxaan joogaa masjidkii maal waa idin soo bandhigaynay la foole. heerkan hadda soo gaaray idinka ayaa ka shaqeeyay muslimiinta, Allah idin barakeeya. haddana baahidii weli siday u taagan tahay de kow ma joogo. muslimiinta waxaan rabnaa walaalayaal hal bulkeeti haddaad ku darsan karto, haddaad hal xabo ismiid ku darsan karto, haddaad hal alwax ku darsan karto, haddaad ka badin karto, waa kayd oo dhiganaysa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala. way masjidka markaad intuu marayaa waa bilow fiican weeye, idinkaana ka shaqeeyey. marka nin walba walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa masjidkan inaad ku soo tabarucdaan ood waxa weeye 100 shilin la baxdo Kenya iyo $100 nin walba niyadiisii wey, nin walba niyadiisii. marka insha Allahu al-Kariim waa bilow fiican, Allah idin barakeeya, ka soo qayb qaata. maalka waxaa ugu dheef badan maalkii sadaqada jaariyada aad ku bixiso, maxaa yeelay marka aad wax lagu dhalay waxaa weeye xayan iyo wamaytanba inaad ku anfacda waalidiinta, hadday dhinteenna aad anfacda. anfaca waxaa ka mid ah inaad meelahan oo kaleeto aad wax ugu darto ood wax la baxdo, ood masaajidkii aad wax ugu darta. ninkii shamiido la baxa, ninkii dhagax la baxo, ninkii xoog la baxa, dhinac walba oo masaajidka ka dhiso. walaalayaal marka waxaan idinka codsanaynaa masaajidkan inaad soo dhistaan, aad qurxisaan. maxaa yeelay looma duminin nin meeshan joogo keli ah, nin walba oo mu'miniinta ah oo muxsiniinta ah oo meel kasta joogo oo masaajidada ka qayb qaata. in badan ayaad aragteen masaajidada la dhisaayo, qolada marka iiday joogto naayib unbay ka yihiin culummada, ma ogi meel walba islaamka jooga ayaa dhiso. marka waan u ducaynaynaa ilaahay idinkiis awlaad ilaahay inuu baari ugu dhigo, ilaahay idinkiis maalkooda ilaahay idinkiis meeshay ka soo bixiyeen wax ka khayr badan ilaahay uu siiyo. cadowga iyo masaa'ibta iyo zamanka shartiisa socda, zamanka waa shar badan yahay, waxyaabaha looga badbaado oo cimriga lagu kordhiyo oo dhinac walbaba lagu caafimaado sadaqada ayaa ka mid ah. masjidkan muslimiinta ayaa lagu dumiyey, intuu joogana ayaga hadda soo gaarsiiyey inay dhammaystiraan muddo gaabanna. ilaa idinkii waan ka rajaynaynaa cid walba uu gaaro kariibkaas sawirka masjidka iyo codka culummada. waxaanu leenahay ilaahay dartii qanimadaha uga faa'iidaystaan. marka insha Allahu tacaala qofkii lacag ku darsanayo, kii bulkeeta ku soo darsanayo, kii shamiinta ku darsanayo, kii jiingada keenayo, mid alwaax keenayo, antaba waa loo baahan yahay, masjidkii uu baahan yahay. Allah idin barakeeyo. muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ku codsanaynaa masjidkan inay ka qayb qaataan, ilaahay daraadiis inay uga qayb qaataan, ay dhisaan si ilaahay subhanahu wa ta'ala guri jannada ugu dhiso. wabillahi tawfiiq.